madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalkuba uga tacsiyay geerida naxdinta lahayd ee ku timid gudoomiyaha gobolka Banaadir marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. waxaa shacabka Soomaaliyeed la qaybsanaya murugada geerida ku timid gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa si gaar ah ugu tacsiyeynaya dowladda federaalka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Geele. haddaan nahay walaalihiin Jabuuti mar waliba waxaan u taagannahay garabkiina dowladda iyo shacabkuba ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa marxuum Yariisow ku tilmaamay inuu ahaa gudoomiye aad u firfircoon wax weyn ka qabtay nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir. khudbadii uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni xalay ka jeediyay xuska 1 bisha Agoosto ee lagu qabtay Garowe ayuu ku sheegay in hanaanka geedi socodkii dhismaha nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya uu ku timid dheelin. waxa uu sheegay in la baalmaray hanaankii gundhiga uu ahaa dowladnimada Soomaaliya sida nidaamka federaalka, ilaalinta sarreynta sharciga, qaybsiga dhaqaalaha magaca Soomaaliya lagu helo, awood qaybsiga siyaasadeed iyo hanaanka dimuqraadiga. waxa uu sheegay in maamulka iyo shacabka Puntland marnaba bedelaynin jacaylkii iyo rabitaankii ay u hayeen ummadda iyo dowladnimada Soomaaliyeed. dhinaca kale madaxweyne Deeni waxa uu ku amaanay guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay xuska 1 Agoost mowqifka hoggaanka baarlamaanka federaalku ka qaatay sameynta sharciga doorashada waxaana uu ballan qaaday inuu kala shaqeyn doono dhamaystirka dastuurka iyo doorashada.